nin baa beri guursaday gabar aad iyo aad u qurux badan, aad ayuuna u jeclaaday. Muddo kadib gabadhii waxaa ku dhacay cudurrada maqaarka ka mid ah oo khatar ah. Timaheedii ayaa bilaabay inay gurmaan. Gabadhii quruxda badneed waxay dareentay inay tartiib tartiib u sii foolxumaanayso. Muddadaas ninkii ayaa safar u ambabaxay oo magaalo kala aaday. Intii uu maqnaa gabadhii isbeddel xoog leh oo saasaantiisa lasii arkayay baa ku dhacay. Ninkii markii uu safarkii ka soo laabanayay, intii uu dhexda ku soo jiray buu shil galay, shilkaasoo sababay inuu aragga beelo. Ninkii wuxuu noqday indhoole. Lamaanihii waxay sii wateen noloshoodii, islaantiina maalinba maalinta ka dambaysa quruxdeedii ayaa qayb isa sii dhimaysa. Hase yeeshee ninku waa uu ka indho la'aa oo kama warqabin cilladda xaaskiisa haysata. Ninku xaaskiisa si aan caadi ahayn buu u jeclaa, islaantuna sidoo kale. Is-ixtiraamkii iyo isqadarintii hore ayaana weli dhexdooda taallay. Waxay wada joogaanba oo nolol qurux badan qaybsadaanba. Maalintii dambe xaaskii ayaa dhimatay. Ninkiina aad buu u murugooday una muraaro dilaacay. Islaantii markii qubuurihii la geeyey oo la aasay, dadkiina ay kala tageen buu ninkii keligii iska dhaqaaqay oo gurigiisii aaday. Nin saaxiibkii ahaa ayaa ka daba dhaqaaqay una dhawaaqay, wuxuuna ku yidhi, war hebelow, sawtaad indho la'ayd, sawtii muddooyinkan oo dhan xaaskaagu ku hagi jirtay, sidee ku dhacday inaad iminka keligaa socotid? Ninkii oo indhihiisa ilmo ka qubanaysa wuxuu ku jawaabay, ma aanan indho la'ayne, markii aan ogaaday xaaskaygu inay cudurka qabto, quruxdeeduna sii baaba'ayso, ayaan iska dhigay inaan indho la'ahay si aanay eegmadaydu dareenkeeda u dhaawicin. Qoraha sheekadan wuxuu leeyahay, ninkii raga ee ninkaasi raganimo ku gaari karaa, kaalintaasoo kalena qaadan karaa, gacanta ha soo taago. Sheekada labaad, nin bay xaaskiisii geeriyootay, kadibna haween oo dhan wuu ka caagay. Sannado kadib, nin ay qaraabo ahaayeen baa waraysta oo yidhi, xaaskaagii waxay mootan tahay 15 sano, maxaad xaas kale u guursan weyday? Ninkii ayaa ku jawaabay, gabadhaas iga geeriyootay inaan gabar kale ka dabageeya dooni maayo, sababtuna waa inay ahayd qof aan iyada oo kale dunida laga helayn. Hal dhacdo oo dhacdooyinka faraha badan ee aan maskaxdayda ka go'een dartoodna aan gabadhaas uga samri la'ahay baan kuu sheegayaa. Maalin baan isku dhacnay oo aan aad isugu qaylinay. Markaas baan ku idhi, dooni maaya inaan wejigaaga arko ee reerkiina aad. Gabadhii waa ay baxday. Isbuuc kadib baan u xiisay. Markaas baan waxaan go'aansaday inaan guriga reerkeeda ugu tago oo aan soo maslaxaysto. Albaabkii guriga ayaan garaacay, mise iyadaa iga furtay. Aad bay ugu faraxday aragtidayda. Markaas bay inta hab i siisay bay dhegta iigu sheegtay. Waxay igu tiri, reerkayga wixii dhacay ha u sheegin. Waxaan u sheegay inaad safar aaday, aniguna aan iyaga siyaaro keliya ama booqasho ugu imid. Xaas la guursada adduunka waxaa ugu qiimo badan tan reerkeeda iyo ninkeeda kala qarisa, tan sirta gurigeeda gidaaradiisa mooye cid kale inay ogaato aan u oggolaan, tan ninkeeda markasta dadka kale hortooda ku ammaanta. Waxa aanu u qaban oo duruufuhu ka reebeenna waa uu ii qabtay tiraahda, ayuu yidhi qoraha sheekadan. Gabdhow, idinkana hadday idinku jirta gabar gaari karta gabadhan laga soo sheekeeyey, farta ha soo taagto. Sheekooyinkan la wadaag asxaabta kale, waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan oo wax ku qaataan. Muuqaalkana inoo sheer gareeya.